qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leyla dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leyla ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadii ma waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyla ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu yidhi maalin kalaa la arkay isagoo ay haystood u dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyla ay ku jirto ka soo baxay yuu ka soo baxay maxabbadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal alla alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkii buu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamacadda maan ku xidhan lahay low kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaaray isku ekaysiiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha bay isku ekaysiiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuuro la yidhaah soomaysa waa 10 muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigaygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma caashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkaan ku daray buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka caashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa caashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadannay tarbiyaddii baan ka qaadannay tacliintii baan ka qaadannay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarn alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa
وطبيعته حلقوا يقان حوجها أخلاق حماء dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka reer Madiina oo waxa isku sheegeen gabdhihiina Julaybiib ha iskaga dhisina min dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanaya Madiina oo dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninku nabigu leeyahay ninkii reer Madiina inantaadii aniga isi markaasuu saxaabiga yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isi waaba nicmad ilaahay aniga isiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi Julaybiib baan la doonayaa Julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la reer Madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadha dhalay inantaa dhalay intuu nabiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydii way qaan gaadheen nabi allah haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonata waa min as-sunna weeyaan Xafsa binta Umar markuu ninkeedii ka dhintay Umar bin Khattab intuu socday ayuu Uthman u sheegay ku yiri haddaad doonto inanteeda Xafsa waan ku dhisi markaasuu Uthman yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa Umar waan fikiray waxa ii soo baxday sanadka maanta inaan guursane hay sugina wala laga raali ahaw jazaakallahu khayr buu kaydi hadana maalin kale Umar socdo Abu Bakar buu la doontay Xafsa yidhi Abu Bakar Siddiq haddaad doonto inanteeda Xafsa waan ku dhisi waa ku diyaar markaasuu Abu Bakar uu ka aamusay لماذا محو عمر إننتيس حفصة وعثمان يا عمر ويا أبو بكر وأبو بدقيا ما تقانا عرفي قبرقا مسلمين تو أي لهايان وحا كمدها إننتو هدي قادك دادي قبلها اللي قور سنيي وحا أصوها ساوايا أبهد ولا الكيد أدير كيد يا أبتقيد هل كينكو أن لنا سوء إيقاقو أربحاني لنا يا أبا متشغية أوندي يا ولي بهيئتها وشغية هيئتها ogaa hay'adaha kharash badan bariyahan moogta la ilaaha illa allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fi buyutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhida jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimadu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inay yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu ka ilaalinaya cadowgu ka ilaalinaya tuugtu ka ilaalinaya dadka mujrimiintu ka ilaalinaya fasaqadu ka ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda muuminada ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxa laga dhaadhiciyay diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tiri aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay ku tahay guriga inaad fadhido soo doona maaha Abi Bakr Umar isaga u doono u haasaaway inantiisi inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xageena waxa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo waxa la is oran buu isleeyahay war matu cagalu hayaa uu nagu camaynaya Umar baa socdo Uthman u bandhigay Uthman uu jawaabay Abu Bakar buu u bandhigay Abu Bakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxa soo doonay Xafsa radiyallahu anha Nabi Muhammad baa soo doonay alayhi salatu wasalaam dadna markaa uu nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakar baa kulmay Abu Bakar baa hadalka qaato yiri
yaa cumar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaasuu yidhi haa aan kuugu hayaa horta abaan cuthmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib haa u istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaa buu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid o yihi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayey buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayey ay baxsadeen ee meydkii dhaawicii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu yidhi julaybiib awaya markaasaa meydkiisi la doonto waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaa buu nebigu yidhi wallaahi kaasi julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay anna isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaabuu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadhaa mooyaane laanna ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam